Asalaamu calaykum. lix arrimood uu kaga duwan yahay beelaha Soomaaliyeed wadarka. Kow, keligii hogaamiye dhaqameed. Wabar Cabdille wuxuu hogaamiye dhaqameed u yahay beesha uu ka dhashay ee ku kala nool Bariga Afrika iyo kuwa ku kala nool qaybaha kale ee dunida, wuxuuna mas'uul ka yahay howlaha beesha. Wuxuu mideeyaa dhammaan reerkaas meel walba oo ay dunida ka joogaan. Wuxuu leeyahay wakiilo isaga uu wakiisho xalinta dhibaatooyinka ka taagan deegaanada reerka uu dego, kuwaas oo u fadhiista garta deegaanada fogfog ee uusan gaari karin. Arrintan waxaa loo arkaa inay ka duwan tahay qaabka ay qaar ka mid ah beelaha Soomaalida u samaystaan oday dhaqameedyo iyo sida ay u howlgalaan. Laba, go'aan ka gaarista ugu dambeysa. Marka ay timaado go'aan gaarista arrimaha beeshiisa, in wabarku uu yahay qofka ugu dambeeya ee go'aanka ka gaari kara. Inkastoo odayaasha dhaqanka marka hore loo gudbiyo arrinta oo ay soo jeediyaan talada ay u arkaan in ay tahay macquul, haddana wixii uu wabarka ku qanci waayo wuxuu xaq u leeyahay inuu gaaro go'aanka aan laga daba hadli karin, wax raacfaan ahna aan laga qaadan karin. Waa naadir in qaar ka mid ah beelaha Soomaalida lagu arko oday dhaqameed uu gaaro go'aanka kama dambaysta. Saddex, hadalkiisa ma badna ee wuu duceeyaa oo keliya. Inta badan odayaasha dhaqanka ee Soomaalida waa kuwo marka ay hadlayaan aad loo dhageysto, waqti badanna la siiyo, aadna ugu dheeraada hadalka. Taasi beddelkeedu wuu ka duceeyaa goobaha la isugu yimaado. Wuxuu leeyahay afhayeen u hadla oo warbaahinta iyo meelaha hadalka loogu baahan yahay. Afar, wuxuu leeyahay la taliyayaal. Wabarka waxyaabaha kale ee uu kaga duwan yahay boqorada ama salaadiinta kale ee Soomaalida waxaa ka mid ah in uu leeyahay la taliyayaal isaga u gaar ah oo kala taliya arrimaha isku dhacyada qoysaska, bulshada iyo wixii la mid ah. Wuxuu leeyahay 14 la taliye oo kala taliya arrimaha beesha. 5, dhaqaalaha gaarka ah ee wabarka. Inkastoo afhayeenka wabarka uu sheegay in uu leeyahay xoolo nool oo xoolihiisa uu raacdo, haddana beeshiisa ayaa la garab taagan xoolo joogto ah. Hanti ahaanna wuu leeyahay guri, baabuur, 600 oo neef oo geel ah, ari gaaraya 1,000 neef iyo 300 oo neef oo lo ah. Way dhacdaa mararka qaar in beelaha Soomaalida ay taageero dhaqaale siiyaan odayaasha dhaqanka, balse way adag tahay in la arko beel Soomaali oo dhaqaale joogto ah la garab taagan oday dhaqameedka. Caafimaadkiisa, noloshiisa iyo waxyaabaha aasaasiga ah ee wabarka uu u baahan yahay waxaa damaanad qaaday tolka uu ka dhashay, kuwaas oo sanad walba siiya xoolo nool, lacag iyo baabuur. 6, siyaasad shaqo kuma laha. Sanadadii la soo dhaafay, odayaal badan oo Soomaaliyeed ayaa aad ugu dhex milmay siyaasadda, taas oo dadka qaar aaminsan yihiin in ay ka duwan tahay waxyaabihii dhaqanka ahaa ee lagu yaqiinay. Wabar Cabdille waxaa la sheegay inuusan marnaba faragelin howlaha siyaasadeed ee beesha uu ka dhashay ama beelaha kale.